wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta Somaliland Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani oo weheliyaan maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa koobab iyo agab kale oo guddoonsiiyay koox ku ciyaaraysay magaca dawladda hoose degmada Burco oo maalintii shalay ahayd ku guuleysatay koob loogu magac daray Jamal Gadari oo Allah u naxariistay dhawaan ku geeriyooday dalka Qatar. Jamal Sofe Yasin Jamal Gadari ayaa kamid ahaa ciyaartoydii waaweynaa ee gobolka Togdheer iyo dalka Qatar ba u soo wada ciyaaray isagoo kubadda magac iyo maamuus ka gaadhay. Isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysa Yusuf Cilmi iyo Jamal Huha oo kamid ah saraakiisha sarsare ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay ujeedada koobkan iyo taariikhda Jamal. waxaan idinka dardaarmayaa sidiisi shakhsigu waxa gobolnimada jecel togdheernimada ku faana abaalkiisa aanu gudno aanu muujino dareenkiina sidii u ciyaari jiray guuluhu uu soo iyo gobolka Togdheer mid lamid ah u ciyaareen ciyaar aad iyo aad u qurux badan ayaa ka dhacday istaadiyooga garoonka militariga ciyaartaas waxay ku dhamaatay rigoorayaal oo ay ku qaadeen naadiga dawladda hoose. gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi qurba joog Maxamed Ismaaciil oo soo qaban qaabiyay koobka lagu xusayay Jamal Gadari iyo xildhibaan Mubarak Yusuf Cilmi Bidhi oo ay isku soo gaadheen kubadda cagtana Jamal Gadari ayaa ka warbixiyay taariikhda Jamal. teeda labaad waxaan Jamal taariikhdiisa kuma soo koobi karnaa halkan anigu runtii haddaan in yar ka taabto 1986kii Alamsey Stadium baan fadhiyay burciyo waxa wada ciyaarayay iyo ceeri gaabo burca waxay ku soo baxday xamar ku tagtaa waa badin bay ahayd bareejo iyo badin waa lagu reebaa 3 gool burco leh oo kamid ah ciyaartoygii gobolka Togdheer waliba guulo badan iyo magac badan u soo hoyay sidoo kale ahaa xulkii ka tirsanaa dalka Qatar annaka Aasiya iyo Aasiya oo badan ku guuleystay bilabada inaynu maanta xusno runtii Maxamed baan u mahadnaqaynaa oo qurba jooga oo isagoo runtii gartay oo agabkan keenay oo fikirka lahaa anaga mahadnaqaynaa runtii cid kastoo gacan ka siisay adeetay isduwa adeetay barasaabka raggii taariikhda ku weyn ku lahaa kubadda cagta ee gobolka Togdheer oo wareegan lagu magacdaray Jamal Sofe Yasin Jamal Gadari runtii marka hore cidii soo qaban qaabisay wareegan wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada shaqagelinta iyo qoyska Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani oo wajigeeda ay ka muuqato qiirada iyo taariikhda xasuusta mahadhada ee uu ciyaaraha ku lahaa Jamal Gadari ayaa ka warantay muhiimadda ugu fadhiyay dalka iyadoo Ilaahay uga bariday inuu naxariistii janno ka waraabiyo ay fadhiyaan da'yarta maanta ciyaarta saaxiibtinimo ee loogu magac darayo halyeegii qaaliga ahaa Allah u naxariistay Jamal Gadari inaan farxadooda la soo kulmo runtii aad bay farxadii ugu tahay waxaan leeyahay Ilaahay firdawsaha ka waraabiyo isaga iyo inta kale ee la midkaaba waxa la yiri nina dhalasho kuugu dhaadhacay nina dhuunu kuugu dhabar dhigay in aad idinkuna maanta waxa iga qiiraysiinaya maqaanka aad idinku maanta ku sugantihiin iyo maalintaas taariikhdu siday ahayd waxa kala duwan runtii inaad ku soo noqotaan maqaamkii aad lahaydeen burco runtii waa burco maaha wax kala maarma maaha wax kala wax ah sharafta iyo karaamada burco inaad dib u soo nooleysaan baan eebay idinka rajeeyay Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.